daka haybadda iyo quruxda markay noqoto loo daa libaax horta aarka loo daa haybad iyo qurux bal u fiirso haybadda iyo quruxda ka muuqata isla libaax kale oon maanta soo bandhigayno ama aan ku darsanayno intii aan soo baranay ama libaaxyadii hore aan soo baranay kana waa Valentino waa la dhahaa magaciisa barasho wanaagsan Valentino waa mid ka mid ah libaaxyada ugu xaragada badan ama ugu quruxda badan ama markii la dhaho ana mid ka mid ah kuwa ugu haybadda badan markii loo eego dominant lionska goobaha ka jira qaab socodkiisa haybadiisa shaashkiisa iyo awoodiisa intuba waxay dhaxal siiyeen inuu noqdo aarka ugu quruxda badan ama ugu awoodda badan ama ugu kartida badan Valentino lion oo isagna documentarygiisa aan dhawaan si tartiib ah ugu soo gudbin doono isla goobtani Valentino wuxuu kaga duwan yahay libaaxyada kale sidoo kale waa maskax badan yahay oo degan yahay deganaashada bal ila dhageyso qaabka uu Valentino uu waxaan marayna codka libaax waxa la dhahaa haddaad magac kale ku garanaysid bal noor soo kana waa Valentino oo hadda u sheegay wargelinaya inuu yani joogitaankiisu wuxuu yahay inuu goobtan isaga maamulo libaaxa kale ama aar kale ee ku soo dhici doona waa mid isku soo diyaariyay ama awoodiisa leh kaasoo isku dayay inuu ka qaadanayo goobtani Valentino maaha mid sida dhayal loogu dhici karo oo markii loo eego awoodiisa iyo kartidiisa sidoo kale maaha mid wax laga qaadan karo haddaba kaliya libaaxu markuu gurxamayo kama dhigno inuu wargelin ay tahay waa communication way ku wada hadlayaan waxa dhici kara qaybaha kale ee ay leedahay raxantu inuu kula hadlayo sidoo kale halka waxa kaaga muuqdo waa Valentino iyo goolihiisii oo si qurux badan wada qadaynaya ama wada cashaynaya iska dhay ama wada quraacnaya aararku ama raxantu inay helaan cunto fresh ah waxay u taraysaa ama u faa'iideynaysaa inay sii noolaadaan cumri ka dheer kii hore halka ay cuni lahaayeen wax dhintay oo bakti ah ama meyd ama wax inay helaan ay cunaan waxa uga fiican markasta inay helaan wax fresh ay ku dishoodaan si ay uga badbaadaan xanuuno badan oo ku dhici lahaa ama noloshooda soo gabagabayn lahaa sidaa darteed Valentino wuxuu kaga duwan yahay sidoo kale wax la wadaaga iyo wax la cunka ayuu kaga duwan yahay libaaxyada kale oo libaaxyadii hore aan soo arki jirnay qaarkood ma ogolaan jirin in wax lala cuno libaaxyo badan oo soo bandhignay ee jira kuwan anagu magac loo baxnay magac Soomaaliyeed kuwa aan magacdoodii siday ahaayeen aan ku soo gudbinay asxaabta qaar waxay soo weydiinay libaaxyada magacda isku yaqaanay waa loo bixiyay magacdan iyo ka iskale Valentino ayaa la dhaxani kani sidoo kale raxantiisii ay si fiican u wada qadaynayaan si amaan ah degan waqti dambe isla Valentino oo ku wareegaya goobo ay degan yihiin kaasoo isku dayaya inuu u dhaco ama inuu dadkan ugaarsado yani kartida iyo wadna adayga Valentino aan ku sheegay inuu leeyahay saacad dambe oo habeen ah ayuu soo galay goobihii dadku ay deganaayeen maxamiyadan ama gooftani lagu daryeelo raxamaha degana marka haddii u soo baxaan ama ay fursad uu ku helo ma deynayo Valentino waa kala goynaya ama hore waa ka cunaya adigu shaqadan ma qaban lahayd saacadan kale ma soo bixi lahayd oo aarka sidaas ah saa u dhaarsa hadda gooshiisii ayaa u timiday laba goolood ee hadda ku soo biiray yani wuxuu u joogsan laayahay oo hadba dhinac ugu wareegaya waa inuu wax dilo subxaanaka cadim insha Allah barasho wanaagsan waxaan soo bandhignay maanta sidoo kale Valentino oo isagoo insha Allah documentary badan aan ka soo diyaarin doono waqti dhow insha Allah aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.